السلام عليكم سودو ودا أصحابته رمضان كريم وعشركي كويتو مناد أو تحنا أو نكوها اللي دونا برنامج بريمير برو عشرة سوسي تحنا وقبها channelka waxaydin soo jeedin doonaa anigoo Xaydar maanta cashirkan waxa uu ku saabsan yahay waxa loo yaqaan synchronization haddaynu guda galno cashirka badanaa youtuberadu microphone bay ku duubaan codka si gaar ah ayay u qabtaan marka codkii aad sida gaarka u qabatay iyo muuqaalkii aad kamarada ku duubtay inay isu dheelitiran yihiin baa la rabaa oo qofku markuu hadlayo aan la isdhaafsin codkii marka qaab fudud ayaad samayn kartaa haddii aad hore u samayn jirtay tusaale ahaan muuqaalkii markaad soo geliso kamarada laftarkeeda cod bay duubaysaa marka codka duubto waxa laga yaabaa codkii ay kamaradu duubtay iyo codkii microphone-ku duubay inaad isla heli weydo tusaale kan waa codkii microphone-ku duubay kana waa codkii ay screen recorder-ku duubay ama kamdaasiyadu markaan rabo inaan isleekisiiyo khasab maaha inay isku mar bilowdaan adiga haddaad rabto kamdaasiyada screen recorder-ka bilaabeysaa kadibna microphone-ka dib ka istaaranaysaa marka waxaa la rabaa inay isu kaaleegyihiin marka qaabka isu leekisiinaysaa inaad waveska isla eegato waa wax adag waayo waxaa laga yaabaa inaad wax yar isdhaafsiiso oo codkii kala haro marka waxaa fiican sida ugu fudud aad u adeegsan karto barnaamijyada inaad u adeegsato waxaanu samaynaynaa marka qaybka waa kusoo gudbaynaa haddii aadan hore u aqoon in codka la isleekisiin karo ama codka la isku beegi karo si automatic ah dhegeysi wacan markii codkii sidaa yahay waxaan rabaa inaan isleekisiiyo waxaa muhiima codka aad rabto inaad labada cod aad rabto inaad wada sinto waa inay laba track kala yaalaan tracks kuwa kan track audio-da A1 A2 A3 intaas default ah hadaad rabto inaad ku darsato right click ayaa leedahay add track ayaa leedahay marka waxaan sameynayaa si fudud ayaan sameynayaa marka hore highlight ayaan leeyahay ama waxaan leeyahay control A oo ah select all markaan select all dhaho waxaan leeyahay right click markaan dhaho waxaan leeyahay synchronize ayaan ku dhufanayaa halkan ayaan tegayaa markaan synchronize ku dhufto waxa uu soo saaraya halka kan waxaan isleekisiinayaa audio marka track 1 channel ayaan dooranayaa ama saas automatic ayaan uga tegayaa okay ayaan leeyahay isaga ayaa raadinaya kadibna waa isleekisiinayaa sida ugu fudud waa isleekisiin kartid waa sidaa haddaan socdo aan codka eego intaa ka horeysa wuxuu leeyahay intaa ka horeysa isma laha waa inaan ka jaraa kadibna waxaan sameynayaa shortcut-yada haddaan rabo inaan adeegsado keygii baan soo dooranayaa sida shalay ku baranay save-as ayaan leeyahay okay kadibna halkaasaan sii ku dhufanayaa intaana waxaan leeyahay x iska jarayaa assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta waad aragtaan si toos ah isku leeyihiin hadhow kan ayaa iska jaraysaa labada tan isku xiraysaa sidoo sameynaya marka waxaan rabaa kan inaan meesha ka saaro kan waa kii uu duubay computerku oo screen record kamtaasiyada uu duubay marka right click ayaan leeyahay waxaan leeyahay unlink labada tan rabaa inaan kala saaro kan ayaan ka saarayaa meesha kana waxaan leeyahay delete track waad aragtaan track-gan markaan tirtirayo halkan waa inaan tagaa delete track waa inaan dhahaa saa markaan u tirtiro waad aragtaan waa isu kala ekaadeen kuma khasbanid inaad isagoo sidaas aad soo qaadid oo kan samaysid waxaa laga yaabaa inuu kaa dhaqaaqo oo kaa khaldamo inaad tegaysaa waxaad leedahay delete track marka meesha waa laga saaraya kadib baad dooranaysaa right click ayaa leedahay link ayaa leedahay isku xiraysaa labadii hadeer labada codka iyo muuqaalku isku xiran yihiin waad aragtaan kadibna waxaad ka saaraysaa waxaan u baahnayn si ayaa leedahay check kadibna x ayaa leedahay waa kaa saasaas ugu dhamaystirtay hawshii badnayd aad ka mari jirtay ood ka raysanaysaa marka waxaan u maleynayaa inaad fahantay waxaan noo balaana muuqaalka xiga iyo maalin kale